السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركا لسو دواده آدي آدا ومهدسنتهين maanta waa 4 bisha saddexaad ee March sanadka 2025 Ramadan Mubarak ayaan idin leeyahay meel kasta oo aad ku soonteen muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago maxkamadii magaalada Minneapolis uga socotay haweeneydii madaxda ka ahayd ururka Feeding Our Future ee Amy Back iyo Salim Saciid oo isaguna milkiilayaasha maqaayadda Safari kamid ahaa oo toddobaadkii ugu dambeeyay gashay hadaba maalmihii ugu dambeeyay yaa marqaati ahaan loo soo istaajiyay maxkamadda oo gabagaba hadda maraysa Trump oo mar kale canshuurtii taarifka ahayd ku soo rogay wadamada Canada iyo Mexico iyadoo sidoo kalena uu ku kordhiyay Shiinaha waxaana durbaba ka jawaabay dowladda Shiinaha dowladda Canada waxay sheegtay inay ka jawaabayso arintaasna sidoo kale waan idila socodsiinaya balse marka hore soo dhawaada toddobaadkii ugu dambeeyay ayay ku jirtaa maxkamadda magaalada Minneapolis uga socota Amy Back haweeneydii madaxda ka ahayd ururka Feeding Our Future oo lagu eedeynayo musuqmaasuqa lacagtii 250 milyan ahayd waxaa maxkamadda la saaran Salim Saciid oo milkiilayaasha maqaayadda Safari kamid ahaa oo isagana labadoodaba la doonaya in la cadeeyo in ay ogaayeen musuqmaasuqan si ula kacana ay u sameynayeen hadaba Amy Back ayaa waxa ay dacwadoogayaasha isku dayayaan in ay cadeeyaan in Amy Back ay ka warqabtay in musuqmaasuqan uu dhacayo waxna ay ka qaban kartay laakiin waxba aysan ka qaban oo ay iska fiirsanaysay waxa shalay maxkamadda sargaal ka tirsan FBI-da oo baaritaanka ku sameeyay kiiskan marqaati ahaan loo soo istaajiyay waxaana la soo bandhigay fariin qoraaleedyo iyo waliba waxyaabo kale oo cadeynaya in Amy Back ay ogeyd arintan isla markaana sidoo kalena aysan waxba ka qabanin sidaas darteedna ay iska fiirsanaysay oo kaliya waxaana la soo bandhigay in qaar kamid ah meelaha cuntada laga bixinayo oo Feeding Our Future ay lacagtaasi siinaysay in ay ka aamuseen isla markaana ay shib ka yiraahdeen musuqmaasuqaasina ay ogaayeen in goobahaasi ay ka socdaan Amy Back ayaa intii arintan ay socotay oo qof baraha bulshada waxa uu soo galiyay in Amy Back musuqmaasuqan oo egeed waxayna ugu hanjabtay in qareenkeeda maalinta bari ah uu soo wici doono isla markaana qofkaasi uu cabsi galin doono sida ay sheegtay waxaana fariin qoraaleedyo ay u dirtay dadka iyada kala shaqeynayay Feeding Our Future oo shaqaalaheeda kamid ah la sheegay in ay fariin qoraaleedyada ay kamid ahaayeen we may have become the mob waxaan noqonnay kooxaha burcadda oo kale ayada ayaa fariin qoraaleedkaasi qof u dirtay sidoo kalena waxyaabaha la soo bandhigay waxa kamid ahaa in Salim Saciid fariin qoraaleed ay u dirtay isla markaana ay ku muujinayso in qof Soomaaliya oo social media ku jira uu soo bandhigay in dahab iyo sidoo kalena giftiye kale oo aroos oo $100,000 ku kacaya in qof ka tirsan shaqaalaha Feeding Our Future oo baraha bulshada soo galiyay qof Soomaaliya marka ayaa soo share gareeyay waxana uu ku soo qoray arintan waxay muuqaal xun ka bixinaysaa dadka Soomaalida ah markii arintaas aragtay kadib ayay fariin qoraaleed ay u dirtay Salim Saciid Amy Back ay ku leedahay arintaasi iga nadiif macnaha laga saaro baraha bulshada arin waxyaabahaasi la soo galiyay ay Amy Back ay qoraalkaasi ugu qortay waxa ay sidoo kale sheegtay in dadkaasi markaasi ay ugu hanjabtay in ay maxkamad la tiigsanayso oo dacwad ceebeyn ah in maxkamad ay kula tiigsanayso marka arimahaasi oo idil waxay muujinayaan ay leeyahay in Amy Back ay ogeyd musuqmaasuqan laakiin si ula kacay isaga dhagatireysay oo isan doonin inay waxba ka qabato lacagahaasi iyada kickback oo la siinayo oo kaliya ay fiirsanaysay lacagahaasi marka ay bixiso oo dadkaasi sheeganayeen in cunto bixinayaan laakiin cunto aanan bixinaynin sidoo kalena waxa toddobaadkii hadda dhamaaday maxkamadda marqaati furahaan loo soo istaajiyay Maxamed Xuseen oo isaguna maqaaxi ku lahaa Faribolt isaga iyo xaaskiisa Luul Cali oo iyaduna toddobaadkii koobaad marqaati furtay waxaana ay sheegtay in shaqaalaha Feeding Our Future ay la FaceTime ahaan ay ku wacayeen Amy Back isla markaana sidoo kalena ay maqaayadaha intii tagaan ay dhahayeen haye waxaad sheegatay inaad cunto bixinayso lacag intaas la eg ayaad helaysaa marka ayaga ayaa nagu amray ayuu yiri in aan beentaasi sheegno sidoo kalena waxa uu sheegay inay nagu yiraahdeen in aad kun cunto ah maalin kasta aad bixinaysaan oo caruur aad siinaysaan waa inaad sheegataan mar kasta
oo aad sheegto in cunto badan aad bixinayso lacag fara badan ayaad helaysaa marka maxamed xuseen wuxuu yidhi anigu Amy Back FaceTime ayaan kala hadlay telefoonna kulama hadlin email ahaanna ma aanan kula xiriirin laakiin wuxuu yidhi marka toddobaad kasta lacag gaaraysa 200,000 ilaa iyo 250,000 naloo keeno waxa aan bixinayna ayuu yidhi 30,000 oo cash oo kickback marka lacagtaasi naloo keenana dadka Soomaalida ay noo keeno Amy Back ay FaceTime ahaan ay ku wacayeen sidaas darteedna iyada ayaa lacagtaasi dalbanaysay in nala ka qaado waxna uu yiri in arintaasi ay jirto waxa la weydiiyay ma jirtaa in cuntada intaasi la eg caruur aad siinayseen maya ayuu yiri xitaa wax u dhow oo kun caruura wax u dhow cunto wiligeen ma aanan siinin ayuu yiri sidaas darteed waa arin nala ku amray inaan sameeyno lacagtaasi marka naloo keegana 30,000 oo cash oo kickback ayaan bixin jirnay sidoo kalena Amy Back waxyaabaha ay sameysay waxa kamid ah in dad baarar ka shaqeeyay ay ka dhigaysay in gudiga Feeding Our Future boardka ay ku jiraan gudiga guud ee ururkaasi wadayay waxa jiray nin kale oo isaguna bartender ah oo dadka cabitaanada dadka siiyo St Paul oo magaciisa John Sinclair la yiraahdo in isagana maxkamadda la soo hor istaajiyay oo la weydiiyay gudigan ayaad ku jirtaa maxaa jira marka wuxuu yiri Amy Back way noo timid waxayna tiri magaciidiina ayaan u baahanahay urur ayaan aasaasaya marka aan aasaasay kadibna magaciidiina meesha waan ka saaraya sidaas darteed ayay magacyo nooga qoratay waxa la yiri kulamo ayaa jira aad ka qayb gashay xitaa mooshin aad soo gudbishay wuxuu yiri mooshin wuxuu yahay maba aqaano laakiin maba jirta ayuu yiri in aan gudigaasi kamid aha oo kulamo aan ka qayb galay isla markaana aan gudiga Feeding Our Future aan boardkaasi kamid aha marka horeyna waa tiin kale ay jirtay oo isagana bartender aha oo isaguna arintaasi beeniyay marka dad ay isaga soo qoratay meeshaas ay uga dhigto in dadkaasi ay gudiga ay ku jiraan oo ay kala wadaan hawsha dhamaantoodna waxay yiraahdeen inagu waxba ma aanan ka ogin magacadeena sababta halkaas loogu qoray kulamo aan ka qayb galnay ma jirto gudigaasina gabi ahaanba ma aanan kamid ahayn marka toddobaadkan ayay soo gabagaboobaysaa maxkamaddu marka ay soo gabagabowdo kiiska waxa gacanta loo galin doonaa gudiga xeer beegtida oo 12 qof ah iyaga ayaa markaas kala go'aamin doono in dambi ay leeyihiin Amy Back iyo waliba Salim Saciid markaas kadib hadii dambi lagu helo xukunkana waqti kale ayuu noqon doonaa marka toddobaadkii ugu dambeeyay ay hadda maxkamaddu ay ku jirtaa dhinaca kale Donald Trump waxaan ogeyn muddo badan inuu hakiyay taarifta ama canshuurtii 25% wadamada Canada iyo Mexico uu ku soo rogayay kadib markii ay sheegeen in xuduudda ay ka ilaalinayaan daroogada iyo dadka sharci darrada ah ee dhinaca Mareykanka uu soo gudbaya 10,000 ciidamada ay Canada geeyeen xadka sidoo kale Mexicana sidoo kale waa ay geysay waxayna sheegeen daroogada iyo dadka soo galootiga sharci darrada inay la dagaalami doonaan laakiin Trump waxa uu yiri wali go'aankayga waan qaadanaya min 25% ayuu wadamada Canada iyo Mexico ku soo rogay xalay ayayna arintaasi dhaqan gashay waxa la leeyahay arintaasi saameyn ay ku yeelan doontaa dhaqaalaha wadanka Mareykanka suuqyada saamiyada hoos u dhac weyn inuu ku yimaado ayaa la filayaa waxaana sidoo kale taarifta canshuurta ay tahay kambaniyada in alaabtaasi Mexico ka soo qaadaya ama Canada oo Mareykanka geenaya ayaa lacagtaasi bixinaya kambaniyadu waxa ay markaasi ku dalacayaan dadka shacabka ah marka ay ka iibinayaan marka arintaasi saameyn inay ku yeelato dhinaca sicir bararka Mareykanka ayaa la filaya Shiinaha 10% waa kii hore Trump ugu soo rogay haddana 10% ayuu ku kordhiyay Shiinuhuna waa ay ka jawaabeen waxay yiraahdeen alaabaha dhinaca Mareykanka loogu imaanayo inaguna 10 ilaa 15% ayaan ku kordhinayna Canada ra'iisul wasaare Justin Trudeau waxa uu sheegay 25 bishan marka la gaaro in sidoo kalena ay canshuur ku soo rogayaan alaabaha dhinaca Mareykanka uga imaanaya marka ma laga yaabaa in haddana wada hadal kale uu dhaco oo Canada iyo Mexico iyo Mareykanka ay ku heshiiyaan in canshuurahaasi la joojiyo isla markaana bedelkeeda waxyaabo kale in ay ka wada hadlaan oo ay ka heshiiyaan marka way arki doonaa sidoo kalena arrimahaas waxyaabaha ka soo kordho laakiin saameyn weyn ayaa dhaqaalaha guud ahaan caalamka ay ku yeelan doontaa ayaa la leeyahay arrintan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo